qofka inta la dilo aan la helin cidda wax dishay oo cid loo qabanayo, cid loo maxkamadaynayo, cid loo qisaasayo aanay jirin. goormay bilaabatay? yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya? anu waxaan qabaa mas-uuliyadda maamulka Somaliland baa leh. xilka iyaguu saaran yahay, kiiska dusha ayuu ka saaran yahay. 2007 halkan iyagu soo galeen taqriiban. dilka qorshaysan wuxuu bilowday 2010 buu bilowday. maalintii suxufi la dilay, habeenkii tafsiirku dhegaysanayay, hortaydaasuu fadhiyaa. marka hortaydaa fadhiyaa telefoon ku soo dhacay, telefoon cod weyn, weli ma ilaawan waa xusuustaan kitaabkaan akhriyo sanqadhii markaasaan eegay ninka telefoon ku soo dhacay. markaasna naxado oo telefoonka u qabtay. markuu albaabka ka baxayna banaanka lagu dilay. sunnii madan ka soo baxay baa leeyay maanta waxaan say la sacaanood khiyaamo ka weyn ma jirto in la yiraahdo ku kalaysan meysaan wixii aad haysateen lacagaha wixii hanti ay haysteen baan ka mamnuucay inaad wax ku kala iibsataan. dee waxa waaqici ah waa saas $0.1 $0.2 $2 $3 $4 waxa konton ka hooseeya u badan waxa la isticmaalayo. maanta inta hadii la joojiyo anu khiyaamo ka weyn lagu sameeyo umada garan maayo. midda kale xan horena waa jirto Somaliland xanta idinku socotaa waxay ahayd nabadgeliyadii magaalada tan labadii qodob ee hadda ugu muhiimsanaa nabadgeliyadiina inaad ku fashilanteen oo waxyaabaha qirantiin anagu waa ka badan tahay waan tirado inta leeyahay. ninkii wasiirka ay hadlay maalin dhexdaasa 43 qof buu sheegay dad baa halkan lagu laayaa wascaanood. muddada joogteen baa xabada socotay, dad fara badan baa ku dhintay. dadka qabaa'ilku markay islaayaan qofka qof dilay waa la qabanaya, waa la ogyahay, waa la iska warayaa, waa laga xajaysanaya. dad dhex ku bari abaa jira oo mar kasta la laynayo adigoo ciidankii meel kasta taagan yihiin, oo militariga meel kasta joogaan, oo booliskii ay wadooyinka joogaan, oo kontarooladii taagan tihiin, oo maxaan ku dhahdaa waxa la yiraahdo stationadii magaalada dhexdeeda ka dhisan yihiin, oo dhalcadii magaalada ay ku jirto in lagu laayo mar kasta bil dhaaf ama 2 bilood ama 3 bilood ama inta marba dhagta heel baa la deeyay la garan maayo cid dishay. waad ka jawaabi weydaan arintaas waa fashil dhab ah oo aan maartay cidna meel kale lagu ma galgalan karo. xilka adaa haya wixii meesha lagu diray shay weydi keenna weydi iyadoo taasi taagantay hadda maanta la tiraahdo wax kala iibsan meysaan oo waan ka joojiyay $100 wixii ka yar wixii qoladii janaasada waday nin qofkii dhintay tuurta ku sidii baa ka dhacay. markaas wuxuu hadduu sii go'ay buuri, hadduu sii go'ay. waxaan leenahay arinta Ilaahay looga boqo. waxaan leenahay ragga madaxda ah xilkan ummadda u haya ee hawshaas ay khusayso go'aan degdeg oo soo saaro ay ka noqdaan arintaas. saasaan ugu naseexaynaynaa, saasaana dantuna ku jirtaa, bulshada danteeduna ku jirtaa, idinkana dantiina ku jirtaa. wabillahi tawfiiq. subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. deelkan qorshaysan wuxuu yahay ee qofka inta la dilo aan la helin cidda wax dishay oo cid loo qabanayo, cid loo maxkamadaynayo, cid loo qisaasayo aanay jirin. goormay bilaabatay? yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya? anu waxaan qabaa mas-uuliyadda maamulka Somaliland baa leh. xilka iyaguu saaran yahay, kiiska dusha ayuu ka saaran yahay. 2007 halkan iyagu soo galeen taqriiban. dilka qorshaysan wuxuu bilowday 2010 buu bilowday. maalintii suxufi la dilay, habeenkii tafsiirku dhegaysanayay, hortaydaasuu fadhiyaa. marka hortaydaa fadhiyaa telefoon ku soo dhacay, telefoon cod weyn, weli ma ilaawan waa xusuustaan kitaabkaan akhriyo sanqadhii markaasaan eegay ninka telefoon ku soo dhacay. markaasna naxado oo telefoonka u qabtay. markuu albaabka ka baxayna banaanka lagu dilay. sunnii madan ka soo baxay baa leeyay suxufi baa la dilay oo sawirka fadhiyay ma suxufi ma la dilay. salaan baa ku xigay, hebelaa ku xigay soo tacundee ilaa hadda habeen hore Cabdirasaaq uu ugu dambeeyay hadda inta la hubno dilkooda boqolaal bay gaarayaan. dadka noocaasa maamulka dawladda ay meesha ka dhisanin
dawlad xilkeedu muxuu yahay sideedaba dawlad ay maxaad tahay maxaad qabataa maxaa lagu egmaday maxaad ka shaqaysaa dawladii waxay qabataa oo laga doonayaa bulshada meesha degan fardi kasta qof kasta oo mujtamaca ka mid ah waa inuu nabad helaa naftiisa waa in la badbaadiyo ay badbaadin kartaa dawladdu maalkiisa waa inay badbaadin kartaa aan xoolo saadicin cirdigiisa waa in lagu xadgudbin waa daruuriyaadka islaamku uu qabo si caalamiin adduunka oo dhami waa wax la isku waafaqsan in la ilaaliyo qofkan naftiisa iyo jiritaankiisa iyo xoolihiisa in loo ilaaliyo baa dawlad ku tahay waxaa sii raacaya wixii harumare loo keenayo ummadda oo tacliintii leh oo maxaanku dhahdaa caafimaadkii leh wixii harumare marka oo shaqo loo raadiyo oo dadkaan shaqo haysan wax loo raadiya leh hawlahaasay dawladu egmatay oo loo dirsaday haddii aasaasiyaadkii aan la samayn karayn oo qofkuba uu naftiisa aanu nabadgelaynin maxaa marka dawladda u yahay dawladnimo marka ma jirtadi wax meesha laga qabanaya oo loo joogaa marka ma jirtadi waan xusuustaa halkan mimbarkan baan ka hadlay 2011 bishii May bay ahayd baan filaya maalintii wadaadkii sheekh maxamed ibraahim sabatar la dilay galab bay ahayd waa la dilay ninkii dilay uu soo cararay nin baa damcay inuu qabto ka soo daba cararay isagana waa lagu tiriyey meel aan ka fogayn baa booliisku fadhiya halkaas ka tamashay meelahaas galay garamaayo meel u dhex maray meel buu galay magaalada ciidankii baa dhooban hareeraheeda Somaliland ciidan waxay lahayd awood halkay joogtaan booliiskii baa jooga habeenkii markaan dhex marayno meel kasta booliis baa kugu joojinaya hadda waxaaba caado noqotay haddii booliis fara badan habeenkii magaalada lagu soo daayo wartaba caawa yaa qoolan caawa cid baa shiraysane baa dadku ufay noqotay caadiya wax caadiya soo baxday arrintaas mar haddii booliis badan la arko qof baa yaalla waaqay dhabay noqotay waxaa jira niman dambibaarayaashii baa jira CID baa jirta waxyaa fara badan baa shaqaynaya qofka la dilayo sanad walba ilaa 2010kii ilaa maanta 2021 aynu marayno dilkaa ku xukuman laasacaanood ee Somaliland ay joogto dawladda ka tahay oo Burca ka dhacay oo Hargeysa ka dhacay oo Boorama ka dhacay oo halkaa ay ku xukuman tahay arrintaas maanaan garowsan wax la garowsan karana ma wax aqal geli karana ma waad marka ka dooranaysaa Soomaalidu waa qabaa'il walaalo hore wax ka dhaxeeyeen xisaabaad hore tasfiyatul xisaabaad bacrab tiraahdaa waxyaabo hore meesha laga safaynayaabo waxyaabo hore la tirsanaya oo leeyahay laga safeeyaa meesha ka socota ilaa waxani maanaan aamusna wax hada